waxaa jiro hadallo badan oo dadka dhexdooda tashwiish badan ku abuuray jeclaan lahayna maanta in loogaga jawaabo su'aalahaas anoo dadka isku dayay inaan matalo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa jira dad badan oo influencer ah ama social media ku jiro diet ka hadla exercise-yada ka hadla dadkana kugula taliyo tusaale ahaan inaysan mooska cuni karin inay liin macaanta cuni karin inay sokor tahay fructose-kaas uu dhibaato u keenayo waa nagala cabsiye laakiin cabsida waxba ka jira warka la sheegay waxba ka jira warka la sheegay sida waxa ku jiraan fructose-ka markaan la fiirino barbar dhigna glucose-ka wuxuu u baahan yahay insulin raba si beerka loo geliyo idin uu ka qaadanaya halka fructose-ka aysan insulinka waxba aysan ka rabin waxba idin kama rabto beerka toos u abaaraysa laakiin taasi macnaheeda ma ahan in fructose-ka ay joojinayno macaadinta iyo mineralska ay sheegayeen iyo antioxidant-iga wixii ay sheegayeen idilba fructose-ka laga helaa marka maxaan sameynaynaa si caqli leh mindful eating waxa la dhahan sameeynaa moderation isticmaalena macnaheeda maalinka qofka intuu u baahan yahay uu qaadanaya